marka rabbi saaxiib ina ku soo biirtaan cryptocurrency mid kamid ah qodobada ugu muhiimsan la rabo inaad si fiican uga fikirtaan ama ka baaraan degtaan waxa weeye exchange aad dooranaysid iyo sidoo kale saaxiib wallet-ka aad dooranaysid oo lacagtaada aad ku aaminaysid marka muuqaalkan saaxiib waxa la maanta inaad idin kula shaqeeyo exchange-da labada loo qeyn isla fiirino kuwa loo yaqaan decentralized exchange iyo sidoo kale centralized exchange waxyaalo kala duwan faa'iidada iyo khasaarada qaybta man muuqaal sidoo kale saaxiib waxaan idin kula wadaagayaa wallet-ka labada loo qabiyo hot wallet iyo cold wallet-ka ayagana maxay uga fiican yihiin wallet-sida maxay exchange-da uga fiican yihiin walletska anagu saaxiib ka fiirin doona waxa way ku baasaboorad u baahan kuwa aan baasaboorad iyo KYC u baahan waan kula shaqeyn doona xagga mataqaana pricing-ka waxa way waa kula shaqeyn doona fees-ka la qaado wallet-ka exchange-da ka fiican soo kale saaxiib waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo xagee laga helo coin aad u tiro badan ayadana muuqaalka rabaa inaan ku wada si aad u fahamtid exchange iyo wallet farqa u dhaxeeyo iyo sidoo kale hadii aad wallets u baahan tahay kuwa aad dooran lahayd soo kale saaxiib muuqaalka waxa ku jiro exchange-da ka shaqeeya Afrika iyo Soomaaliya maadaama dhalinyaro badan oo cryptocurrency ay halkan ugu xiran yihiin aan access badan xitaa u lahayn exchange-da qaarkooda أنا كشقين ودنك صاحب المقعي وقال بشير يوتيوب كان سما لنا واحد أوسو قد بيا عشرة كسابسن يونيوز كسابسن سوقا كريبتو كارنسي هدي عشان مركز سوقا كريبتو كارنسي أونلاين بزنس كان وصل بالفيديو قلنا نص هذا كلنا كسو سبسكرايب قري ما دام صاحب الأسود ويا هيستند كعصب هدي أريد مال حرفت كبرت بوقا ويب سايت كيوا كان قال بشير .com وأكاديمي أونلاين بالعرب كلي كمبيوتر كأوبان هنا 10 مش كبرت حرفت بدن بكتير معلمين كلا دون سوق كلنا كتير مع صاحب أنا كمية كورسنا وهرس وكريبتو كارنسي أنا معلم كتك أدبيان حسين يعني كريبتو كان كسو بيري كذا كورس كنت صاحب الوفوركس ويا معلم كلا كدروب شيبينج كي ويب ديزاين كي فيديو اديتنج كرافت ديزاين كي برشاد كمبيوتر كي اي تي كودينج كي حتى كنت فول ستاغي على بابا اي كوميرس حرفات كاستو اونلاين way ku jirta akademiyada website kana galabashir.com booqa ama number kan 17 u dambeeyay insha Allah kas dalbo office kan Soomaaliya xad teamka insha Allah ku caawin doona waxa saaxiib waxaan ku bilaaw doona exchange-da talaba loo qaybiya SEC iyo DEX baa kala SEC waxa la saaxiib yaar centralization exchange ama centralized exchange baa la DEX waxa la decentralized exchange baa la maxay kala duwan yihiin centralized exchange saaxiib waxa laga wadaa waa exchange-yo shirkado caadi ah ee leeyihiin hadda bangiyada kala dad ma laha Premier Bank Salam Bank kala soo dad ma laha saas oo kale way exchange-da SEC loo yaqaan waa shirkado caadi ah waxa ka mid shirkada Binance waxa ku diinayaan baasaboorkaaga ama laysankaaga ama waxa ku diinayaan degnaanshaha waddanka deganta ID taas marka waxa la saaxiib KYC baa la nooy customer oo intaad account ka furan waxa laga xareeyo documentiga baa laga xareeyaa account verify baa lagu saariyaa marka account verify geliso kadib baad iibsan kartaa crypto aad jeceshahay ama aad rabtay marka centralized exchange hadii ama qashid waa shirkadahaas ee ka mid saaxiib yaal Binance Coinbase baa kamida Bybit baa kamida KuCoin baa kamida afarta ugu weyn centralized way fuudaha marka just account ka soo saadii Soomaaliya Afrika joogtay Binance waa ku fiican inaad dooratid Mareykanka kala da Binance kama shaqeeyo Coinbase waa fiican inaad doortaan change ugu weyn saaxiib yaal waa Binance weeye waana kan ugu balaaran markay noqoto cryptocurrency lacagta u badan dadka kaas gashtaan marka tal ahaan wuxuu ku siinayaa Binance in aad dooratid hadii aad raadis wax exchange ah linkigiisa hadii u baahan saxdaan wuxuu yaalaa saaxiib yaal description keena show more halkaas ka helisa linkiga saxda ee Binance okay marka faa'iidada iyo khasaaraha ama bro iyo coins-ka isla fiirin doona centralized exchange-ga la markoo saaxiib waxa la yaqaan customer support weeleen oo hadii soo kala Binance oo kale account-kaaga ka dhumo ama passport-ka ilowdo kale forget baa leedahay lagu bedelayaa documentiga baa lagu soo weydiin soo kale wada kale baa u guurtay in passport kale baa qaadatay customer support weeleen wax ka Soomaaliya passport Soomaaliya haystay qurbaha u soo guurtay wadanka ka qaatay dhalasho account-kaaga xilli hore ku soo jirtay lacag badan ugu jirto marka waxa arta documentiga cusub inaad u soo wareegtid marka simple way support-iga baa la helay waxa leedahay you know what ani wadankan u soo guuray inuu xarba passport-kayga in upgrade ku sameeyo oo kan iga saartaan isla mid kale cusub ilgelisaan okay bi markuu leeyahay ku sameeyay laakiin waa inuu isla haadaa magaca dhalashada iyo mataqaan macna documentiga hore ay ka hayeen passport hore ama ID-ga ama license hore ay ka hayeen inuu kan lahaada way contradiction document yahay way adagta inuu ku caawiyaan adagta inuu ku caawin doonaan because sharciga ismaaha marka haduu documentiga yahay isla asagii in kale inuu isla haadaa laga yaabaa marka wuxuu ku fiicayeen centralized exchange saxbiya support way leeyihiin oo dad la yaqaan xafiisyada weeyo meel lagu haago way leeyihiin lacagtaadi waxa laga yaabaa mar walba inay ku badbaado sidoo kale saxbiyaal waa friendly interface leeyihiin oo sidoo kale Binance hadii ay gashaan kale aad birtu u foodo inay fahamtid marka la iibsan marka la iska iibinayo deposit-ki crypto-hi macnaha ku wareerimis interface yaro simple ah oo qofka beginner-ka runta u fiican bay leeyihiin saxbiyaal hadii aan isla fiirin dhanka khasaarahana laban ku soo koobnaa centralized exchange-ga waxa loo yaqaan full control weeye ayaga lacagtaadi control oo shirkadaas lacagtaadi ku hayso ina taagtid weeye crypto-na wuxuu blockchain wuxuu caan ku yahay loo yaqaan decentralization oo ah waxa weeye third party kale oo ku jira laakiin exchange-dan loo yaqaan SEC-da lacagtaada ayaga ku hayo mas'uulka ah tusaale yar saaxiib hadii aan isiyo hadda dawladda madqa Ingiriiska waxay ku dhawaaqday bishan waliba December 2024 in waxa weeye exchange-yada dadka Bitcoin ku haysta ama crypto ku haysta ay canshuur ku soo rogayso marka way fuuda marka inuu canshuuro waayo Binance baa la xiriiriyo waxa leeyahay dadka degan UK iyo kale soo gudbilaan dheer waa la canshuuraya markaas horta documentiga gacanta loo inkastoo ay ogoleen Binance oo shuruucda ay kamid tahay laakiin qiri hadii la soo dhaafo in ogolaadaan waa macquul maadaama waxa weeye KYC-ga ay hayaan lacagtaada in meesha ay kugu jirto
marka lacagtada marba waa la controla oo shirkadba u dhawaado bangi waxa way lacagtada ugu jirto kala weey taas marka macnaheedu ma aha lacagtada in safe ahayn laakiin waa faa'iido darrada macnaha in dhigkan at least in faham qaado qodob kale saaxiib yaal oo qasaarada oo sakada soo wajiga waxa kamid ah potential for hacks way u fududahay in la hagareeyo sometimes exchange oo dhowr exchange oo la soo hagareeyo laakiin Binance oo kale waa company weyn lacag badan bay leeyihiin xitaa hadii la hagareeyo compensation ma bixin karaan waa shirkad la yaqaan oo KYC document ay waa lahayd marka Binance hadda ma fudud in la hagareeyo mar raba la hagareyn kara laakiin exchange waxa jira yar yar taas oo aan idin leeyahay Binance oo biggest crypto exchange ah ayada waxa gasho ayadana ku fudud in adagta in la hagareeyo waa hagaag decentralization exchange tii hore saaxiib yaal lidigeedii weeye tan waxa isma saaxiib waxa loo yaqaan peer to peer trading base maasha Allah lacag si toos ba isugu dirana macnaha decentralization waxa laga wadaa shirkad noo dhaxaysa ma jirto KYC laga mar rabo waa technology-ga decentralization bay ku dhisan tahay exchange back waxa ka samaysan tahay mataqaan akoon ko passport ku weydiinayo laba waxa weeye KYC dhanna ku weydiinayo laakiin kuwii hore aan soo sheegay Binance iyo caadiga document waa laga qaadaya marka DEX hadii aan maqasho horta wax document KYC ku weydiin taas oo ku fududeynaysa hadii aad Soomaaliya joogtid in akoon ka samaysan kartid adoona waxa weeye wax kale u baahan waayo ID card iyo document lagu weydiinayo waxa gashanaysa waxa weeye magacaaga username password baa samaysanaysa number sireed baa lagu siinaya inta unba waxa weeye akoonka marba kulisa oo saaxiib maxaa kamid ah marka DEX waxa loo yaqaan waxa kamid saaxiib Uniswap oo ku dhisan saaxiib blockchain Ethereum oo xoog Ethereum network loo isticmaalo kaliya coin ka Ethereum ku dhisan baa meesha saaxiib yaal ku isticmaali kara bankiga Uniswap baa kamid saaxiib yaal oo ku dhisan saaxiib yaal Binance Smart Chain ay ku dhisan Uniswap baa kamid most waxa ugu caansan Uniswap iyo bankiga Uniswap baa ugu caansan decentralization exchange-da koorsada crypto labadaas baa runtii xoog ugu isticmaalna marka marka faa'iidada maxaa kamid faa'iidada saaxiib waxa kamid no KYC wax KYC lagu weydiin doono passport ID soo xaray ma jirto saaxiib yaal sidoo kale saaxiib yaal lacagtaada adaa control full control of funds kaaga adaa control third party ma jiro cid ku canshuur ismooda lamana ogaan karaba dawlad bana ogaan karin wadan kale ogaan karin hadii waxa ugu jira exchange-daasi decentralization-ka because blockchain bay ku dhisan yihiin waa DEX weeye sidoo kale saaxiib faa'iidada ay leeyihiin saaxiib yaal exchange-da DEX waxa kamid ah tokens badan baa ka helaysaa hadda soo kale second kuwa la yaqaan sida Binance iyo Coinbase oo kale kaliya waxa soo list gareeyeen koonka ay rabaan markoonka community fiican soo sameeyo soo caan baxo la yaqaan mashruuciisa dadka lagu dhicin oo kale dadka yaqaanaan macnaha waxay leeyihiin requirement bay leeyihiin oo mid gareyn kara koonka laakiin saaxiib yaal DEX exchange-dooda coin kasta wuu ku jiraa marka samhuna waa risk samhuna waa faa'iido dadka hadda traders-ka oo kale coinanka raqiiska oo kale ama hadda la sameeyay meme-koona bay hoos ka soo raaci karaan zero mataqaan market-kaaba ama 100,000 ama 300,000 ama half million ku jirto kale bay soo raaci karaan laakiin Binance kama heli karaan marka faa'iidooyinka waxa kamid ah in aad tokens iyo coins badan aad ka heli kartid oo aan exchange-da waaweyn soo galin faa'iidada saaxiib yaal waxa kamid ah less user friendly website-da marka soo gashid waa wareer weeye qofku beginner-ka xoogaa wuu ku wareeraya because waxa uu dhisan garaya si mataqaan more professional that's why aan idin leeyahay qofku inuu ku degdega ma ahan DEX-ka marka hore sakada soo ku soo jir Binance kadib hadaa jacasha imo waayo waxa lagu xiraa wallet-kaaga gadaal baan ka arki doonaa wallet soo kale MetaMask wallet baad ku xiran kadhaa ama Trust wallet baad ku xiran kadhaa sidoo kale saaxiib dhibaatada kale leeyahay waxa kamid ah fees-kooda waa qaali fees-kooda runtii aad buu qaali u yahay marka transaction sameynaysid lacag badan baa laga qaadaya halka sector uu free iska yahay halkaas marka hadii aan uga baxano mataqaana exchange-da wallet-ka hadda imaano wallet saaxiib yaal laba loo qaybiyaa waxa la saaxiib yaal hot iyo cold wallets baa lahaa mid qabow iyo mid kullo kale aan dhahan hot wallets maxaa laga wadaa waa walletida saaxiib yaal internetka ku xiran oo online ah hot wallet waxa kamid ah MetaMask iyo Trust wallet baa kamid ah macnaha online bay ku xiran yihiin website-kooda baagalaysa account baa ka samaysanaysa wallet baa ka samaysanaysa exchange-ga jacasha waliba DEX-ga waxa way baad ku xiran sida mataqaana PancakeSwap oo kale ama Uniswap talabaad saaxiib waxa la cold wallet baa la ama wallet qabow macnaha waxa ka wadaa tan online kuma jirto maxaa ka saaxiib yaal ledger-ka iyo Trezor-ka adigu waa USB oo kale taas cold wallet waa macnaha internetka lacagtaada soo kale USB waxa ku shubanaysaa cold wallet kaliya marka transaction sameynaysa baa gelinaysaa computer-ka waa ka saaraysaa taas marka ugu safesan cold wallet waa ugu safesan dadka tujaarta de billions ugu jirto arinta xoog mustal uu isticmaalo because aad bay safe u tahay hot wallet laakiin internetka bay ku jirtaa oo website damar u baahantay in access gashid oo hadii uu si fudud kaga baxo mataqaana passwordadooda kale laga hagareyn karo marka walletida labaas la qoya wallet marka asaga waa boorso oo ka saaxbal maxaa ku kala duwan marka saaxib yaal exchange-da iyo wallet-ka features baa jira marka aad ku aragtay exchange-da laakiin walletida ku aragto kale exchange-da wuxuu leeyahay buy iyo sell buu leeyahay hadda Binance oo kale buy sell buu ku leeyahay laakiin saaxib yaal marka la joogo saaxib yaal wallet-ka waxa ku leeyahay send iyo receive bay ku leeyahay marka way kala duwan yihiin saad waxa weeye aad dareemi kartid xataa deposit waxa si ayaga mataqaana receive iyo send baa ku arkaysaa walletida marka xoogaa feature way kala duwan yihiin tusaale kale saaxib marka la joogo exchange-ga waxa arkaysaa waxa loo yaqaano convert oo kale tusaale Binance oo kale laba kun marka isku bedelisid oo tusaale kale USD iyo Bitcoin isku bedelisid convert wax fees ma jiraan convert by the way inaad taa ogaatana waa rabaa oo weliga hadii ardad baa waxa sameeyaa baxar badan galayo tusaale kale wuxuu rabaa inuu koon kale u guuro oo mid kale u guuro marka wuxuu sameeyaa koonka sell buu gelinayaa markuu sell soo gasho oo fiat oo ka dhigto kadib uu koonka kale u soo guuriyaa hadii akoonka sell gareyso ogow kinjida lacag laga qaadaya marka maxaa la sameeyaa convert sameeyaa convertiga zero fees way
lacag ama qaaday laba koona tood isku bedelisa laakiin lacagta fiat ka dhigtid oo credit ku soo celisay waa exchange laba jeer buu geliyaa marka hore iyo marka labaad waliba wuu ku geliyaa marka taasna wataan baa laga rabaa okay marka hadii amar ku soo laabal exchange iyo wallet exchange saxab waxa loo yaqaan convert uu leeyahay halka laakiin uu waladida ku arag doon saxab waxa loo yaqaan swipe ba ku arkaysaa swipe waa laba koon isku waliba ayaga blockchain ku inaas ka hoose oo ku dhisan yahay tusaale kale wax taqaana koonkaas ma ethereum ku dhisan Solana ku dhisan waa dadka isma galaya marka intaasna fiijahan way ku kala duwan yihiin marka saxab exchange waxa loo yaqaan trading bay leeyihiin buying iyo selling waladida ayaga mataqaan waa storing sending iyo receiving bay leeyihiin main shaqada weyn exchange shaqab saxab waxa weeye waa in wax laga iibsado buy sell weeye shaqada weyn laakiin wallet shaqadiisa ma aha ayaga waa in wax lagu kaydsado marka labadaasna saxab aad bay kala duwan yihiin marka security noqdo saxab exchange waa centralized weeye which is high risk oo dad baa maamulo laakiin markii noqdo saxab wallet waa decentralized safer weeye aad buu saxab ugu safeeyay soo kale saxab waxay ku kala duwan exchange private key ayaga ku haynayo oo kuma siinayaan halka wallet ka gacanta laga saaro soo kale Binance kale password email lagu siinaya halka soo galisa in la tan password ka bedel laakiin private key ma bixiyaan exchange waxay ku siin public key address ka la crypto lagu diro laakiin wallet ka gacanta laga saaro private key 10 koodan ka saxab yaal trust wallet oo kale arka soo loo sameeyo wallet ka waxa ku siin la saxab yaal second phrase ku siinayaan oo password amal ka adag hadii la helo marka phrase kaasi lacagtaada ama akoonka waa loo daadan karaa marka wallet ka isticmaal laakiin saxab exchange kuma siinaya wax loo yaqaan secret phrase ka ayaga haynayo kaliya password email lagu siinaya marka waxa la kula duwan yihiin more safe waxa hadii aad ku cusubtaa exchange kana isticmaashid marka yes saxab hadda waxa leeyahay waa kala fahanteen wax loo yaqaan exchange iyo wallet waa kala fahanteen hadii aad beginner tahay crypto ku cusub tahay ilaa ay sanad exchange iska isticmaal saas soo u fahanteen laakiin soo marka gudaha u soo gashid oo professional noqotid asla okay this time lacag badan oo kugu jirto more safe baa rabaa marka saxab waxa imaan ka dhamata waladida oo lacagtaadii wax ka soo dirsan ka halkaas waladida waa imaan waladida ayaga baa hadana call iyo hot kala leh marka hore waxa ku bilowda hotka iskaga bilow aan koorsada waliba ku bixiyo qamada maasoo kale trust walba kala lacagaha isku yeelaan marka bridge noqota call u guuri kartaa oo USB ah oo Trezor la jira aqaanata saxab haduu fiidan ku anfacay laakiin nasar aadamastiin adma islaamiya